بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكالة ورك أغادينيا waxay idin soo gudbinaysaa waraysi laga qaaday hoggaanka gaashaandhigga jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya naftii hore Sheekh Deeq oo tababar u soo xiray ragcad cusub oo kamid ah ciidamada wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo ku sugan jidda hore ee dagaalka. dawladda hadda ku soo dhawaada waraysiga oo sida tan u dhacay. naftii hore Sheekh Deeq waxaan doonaynaa inaan ka qaadno waraysi meel badan taabanaya marka ku soo dhawo waraysiga. waan mahadsantihiin waan dhawahay. mar kale su'aasha koobaad haddii aan ku weydiiyo naftii hore Sheekh Deeq maadaama uu hoggaanka gaashaandhigga jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya oo ku sugan jidda hore ee dagaalka wal xasraxad kooban nooga siisaa jawiga guud ee lagu jiro ee dadka Ogaadeniya iyo gobolka Ogaadeniya ay ku jiraan xagga fusuusha markii la yiraahdo ama xilliyada. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. Ogaadeniya horta xilligan ay ku jirto waa xilli gamashi ah oo dayr baa hadda dhamaatay waxaana la gudagali doonaa insha Allah xilli jiilaale waana xilli aaran oo ay xaaladdu fiican tahay taa waa xagga jawiga cimilada. dhanka kaleetana dee halgankii hubaysnaa ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ay gudaha ka waday iyo shacabkii gumaysiga ku jiray oo isagana wali sidii loo gumaysto waa jawi guud ee dhulka Ogaadeniya oo cidii la weydiiyo waxay ku soo ururin lahayd xilliguna waa xilliga wadankiina wali waa la gumaystaa halgankiina si fiican buu u socdaa saasay ku soo ururin lahayd oo malayn inuu gaaban tahay su'aasha kale ku weydiinaa waxa weeye waxaa jirtay dawladda gumaysiga Itoobiya inay sameeyeen maleeshiyooyin Soomaali ah oo gobolka Ogaadeniya ka soo jeeda kadib markii ciidamadoodu waxba ay tari waayeen ciidamadii militarigu halgankii oo nalaf ay ku jirtay ay waxba ka tari waayeen marka waxa la sheegaa ciidamada Soomaalida ah ee maleeshiyooyinka Itoobiyaanku ay iyagu gacantooda ay ku sameeyeen xadgudub fara badan inay u geysteen shacabka marka bal arinta loo yarfaafay caadadiisu ay tahay marka raacda taariikhda adduunka gumaysta walba wuxuu diyaariyaa meesha uu gumaysanaya dad kamid ah oo dadka la af iyo la dhaqan ahaan jiray in intuu diyaariyo oo hangool wax ku soo qabta ka dhiga ama mindi wax ku gooyo ka dhigta waa caadada gumaysiga. way jirtaa marka arintaasi inuu cadawgu ururiyay dad maleeshiyooyin ah oo dadka Ogaadeniya dabaqoodina waa loo yaqaanaa hawaarina waa la dhahaa si kastaba ha ahaatee dad afka Soomaaliga ku hadla oo fulinaya hadafka wayaanaha wuu jiraa dadkaasi mayna badnayn dhibka ugu weyn ee geysteenna wuxuu ahaa shacabka aan waxba galabsanin inay yiraahdaan shacabkani waa dambiilayaal oo shacabka ay xasuuqaan guryaha ay gubaan ceelasha ay aasaan gabdhaha ay faraxumeeyaan waxbarashada ay hor istaagaan dadkii maaragtay wax baran hayay beeraha ay joojiyaan in la tabcado si qamandii iyagu gacanta ku haystaan oo hay'adaha qaarkood intay keenaan oo qamandiga iyagu la wareegaan yaa waxay sameynayaan marka inay yiraahdaan ciidan hal la keeno oo iyaga dadka hadafkooda fulinaya inay arrimahaas ay ku fushadaan dadkuna uuna horumar gaarin oo beertiisii uuna si xor u tabcanin oo ganacsigiisa hadda wadanka cunaqabadta saaran ganacsigiisa si xor uuna u ganacsanin waxbarashadiisa si xor uuna u waxbaranin ardayda xataa waa la kaleeyo waa la kor taagan yahay wixii iyaga xataa gacanta ku hayaan waxa cararay ee meelaha waxbarasho u doontay iyo waxa gabigoodaba markuu dhibki ka batay iyo xidhigii ciidanka wadaniga xoreynta ku biiray marka laga reebo intii gacantooda ku jirtay yaa maalin walba haddana loo caga juglayno ururkii baa tihiino su'aal hadduu ardaygu uu macalinka weydiiyo waxa la oranayaa fikradda waxaad aaminsan tahay ee gobonnimo doonka marka qolada saas ahayd way jiraan hase yeeshee qolada hadda way u dhamaatay waa qaar way dhinteen oo dagaaladii aan la galeynay gumaysiga wayaanaha yaa iyagoo ama dee wayaanihii la socda ama indhow ahabay halkaa ku dhimanayeen qaar way isu soo kaana dhiibeen oo hadda ciidankeena la joogaan qaar reerahoodii bay isaga kaceen qaar wadamada dariska habay u kaceen qaar kamida iyagiiba aamini waayo way xidhxidheen oo maxabsi ay ku jiraan xilligan xaaliga laakiin waa u dhamaatay kuwa oo waxa ka joogaana uu yar yahay hadaf ahaan iyo qorshihii loogu talagalay uu burburay waa u dhamaatay. iskaga hor imanayaan ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo kuwa Itoobiya militarigoodu in laga qaato hub fara badan
yaanu maqalaa marka arintaas maxaa ka jiro bal noo faahfaahay halka waa arin jirta taasi arin dhaba weeye saadkanaga iyo hubkanaga iyo saanadanada ama hubkeena iyo saanadeena aynu cadawga kula dagaalano boqolkii horta 60 cadawgan ka qaadanaa inta kale waa nidaamka isku tashiga ee ku salaysan tahay oo jabhada gudaheeda iyo shacab weynaha taageeradiisa laakiin saan horeyba kuugu sheegay boqolkii 60 waa hubka cadawga hubkaan ku dagaalano isgaarsiinta waanu ka qaadanaa oo waa joogto inaanu isgaarsiinta ka furanno tu yar iyo tu waaweynba oo tayarka tana kamida qalabka laftiisu waa noocyo kala duwan qalab waaweyn oo maaragtay qoryahan maaragtay sida dashiikaha iyo zuuga iyo waxyaabo kale oo lamid ah qoryahan kale ee garabka laga rido ee ciidamada iyo dokumentiga iyo qoryaha noocaas waan ka furanaa kuwa maaragtay small armska kamida sida PKM-ka iyo sniperka sida qorigan oo kaleeto oo maaragtay iyaga inta waxa ku caawiya wadamada qaarkood oo anagu xoogaal aan u nahay oo ka tababara dhanka bilayska iyo military-gaba marka wadamadaas baa soo siinaya qalabkan marka waa duurka la soo galaya diirada ku xidhan hadda waa diirad meel fog ba wax laga arkaya waa inta badan waxay ku toogtaan shacabka oo ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo waa mid la haysta nidaamka guriilaha iyo cimilada dhulkuna waa dhulkanagiyo goobtan qarin iyo goobtan qarin baan xoogaal u nahay marka qalabka laga furayo kuwaasa kamida waa noocyada qaaligu ku yahay hadda hadii la yiraahdo sidiisa loo iibiyo oo hadii la yiraahdo geel hal la siiyo xilligan xaaliga qorigaas qaali weey diirada kaliya taa qaaliya buugiisa iyo cilmigiisa ayaa iyaguna qaali marka qalabkaanu ka furanaa waa mid tiro badan weey ama hasanta waxaa jirta cunaqabatayn in gobolka Ogaadeniya dowladda gumaysiga Itoobiya inay ku soo rugtay laga soo bilaabo 2007 dagaalkii weynaa ee jabhadu ay ku qaaday Coballe qoladii shidaalka qodaysay inta kadib waxaa jirta cunaqabatayn gobolka lagu soo rogay marka cunaqabatayntaasi say u saameysay nolosha shacabka ilaa hadda ma jirta mise isbedel baa jiro oo waxba ay ka bedeleen cunaqabataynta sidii bay u jirtaa cunaqabatada waa sideedii dawaad garanaysaa shacab la gumaysto oo ganacsigiina aan loo ogolayn noloshii kalena aan loo ogolayn saameyntu ku yeelan kara waad garanaysaa waxa loogu talagalay in la dhibaateeyana shacabku ahaa waayo anagu shacab ma nihin jabhad baan u nahay hubaysan shacabkana waa shacab aanu ku dhex jirno oo shacabkanagii ah iyagaana taageera wiilka dagaalamay iyagii buu ka soo dhaxbixiyo ka dhalanaya hantidu waa hantidii dadweynaha sidaa markay u xaqiijiyeen baa cunaqabatada la keenay marka waxa loogu talagalay dadkan inay noolaanin oo saddex maada noqdaan qaar inay iska cararaan oo wadanka dhaafaan qaarna inay maaragtay ay isdhiibaan iyo qaar maaragtay iyagu ay si kale taw isticmaalaan oo arrimo dadban ay isticmaalaan saddexdaan nooc inuu dadkani noqday ugu tala galeen hase yeeshee shacabkan waa shacab ballaaran xoolo nool badan buu leeyahay dhul beereed buu leeyahay difaacadna buu leeyahay oo shacabku uu dagaalamaa in badan oo kamid ah oo hadda si toos ah u ogin iyaga xoogaalka ah dagaalo badan oo gudaha Ogaadeniya ka dhacay inay shacabka wadaniga shacabka Ogaadeniya iyo ciidamada wayaanuhu dhaxmaray oo shacabku isaga isbadbaadinaya jabhadii baa difaacaysa marka noloshii hajirta ciriiri badan iyo go'doomin iyo wax ganacsi oo jirin oo hadda ruuxa shacabka Ogaadeniya haduu damco inuu wax ka soo iibsado magaalada kiishka sonkortii wuxuu marayaa 1400 oo bir oo maartay shilinka wayaanaha birka wayaanaha iyo maraya meel waxaa jira nacnac intii la tumo sida gobolka maartay Shiniilo oo kaleeto dambal iyo afdam degmooyinkaas oo kaleeto hadda waxa weeyaan intii meel kale iyaga waxoogaa maartay ganacsi uga iman jiray tiiba la godoomiyay oo awrtii baa dabadii laga wada gooyay dadkii baa baabuur waxay wateen la gubay markaas waxa lagu kalifay nacnacay haysteen intay tumaan inay maartay kolka rinjiga intay ku darsadaan ay ku cabaan xagga macnaha sida loo godoomiyay iyo qaalisanida macnaha sonkorta takalada shilin bahalka birka oo awal hore waxoogaa dadka wuxuu gooynayeen dawladdiisii baa dhacday marka sicir bararkii ku dhacay meesha ayaa saameyn ku yeeshay marka noloshu si kasto ay ahaataba shacabku haddana waa shacab ha iska dhuudhuubnaado haddana maartay weyd caafimaad qabta weeye shacabku waa maasanta maalintii waxaan arkay ciidamo fara badan oo waxbarasho wax noocaas aad u furaysay baan isleeyahay marka ciidamadii maxay ahaayeen oo tababarriyo waxba jiray
waxaan gudaha ogaadeenaya waxaa ka socda tababaro kala duwan oo ciidamada ah waxaa jira dugsiyo tababar oo magacyo kala duwan leh marka hadda kii aad u arkaysa wuxuu ahaa dugsiga la dhoosiigaale wuxuuna ahaa dafcadii labaad oo ay ka qalin jabinayeen mas'uuliyiin kamida ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya hogaaminta ciidanka la qaadanayay oo maadaama ciidanka ogaadeenaya ciidan xoog badan uu yahay oo ciidan ahaan u tiro badan wuxuu leeyahay madax hogaamisa kuwaasoo tababar ku filan la siiyo intii annaga tabartana ah iyo welibana xilligan la joogo aad iyo aad haddana u wanaagsan oo markaad eegto dee dagaalka lagu jiro xawliga uu ku socdo iyo cadowga maaragtay dee shirqooladiisa iyo qaabka uu isaga laftiisu dagaalka u wajahaya markii la eego waa mid ka tayo badan marxaladda aanu ku sugannahay tababar ka tayo badan baa socda marka waa laba nooc oo mid waa kii ciidanka guud midna waa kii carbinta maaragtay mas'uuliyiinta ama hogaaminta ciidanka waxa la yiraahdo noocyo kala duwan ah marka taa macnaheedu waxa weeye ciidamada faraha badnaan arkay dhamaantood waxay wada ahaayeen mas'uuliyiintii ciidanka hogaaminaysay oo baranaysay culumta hogaaminta siyaasadda sirdoonka iyo waxyaabaha la xidhiidha yani militariga taasay ahaayeen wax haba yaraatee xilligii ciidanka arkaysay waxaan hogaamintii iyo madaxdii ciidanka ka ahayn maynan ahayn oo goobtii galaaska waxa ku jiray dhammaan madaxdii ciidanka ahaayeen ee welibana qaybtii kolkaan dhex joognay hoggaanka gaashaandhigga jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya oo ku sugan jiida hore ee dagaalka oo hogaaminaya dagaalka maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ogaadeenaya dagaalka ku jira gudaha iyo dibadda shacabka ogaadeenaya gudaha iyo dibadba waa inay guntiga isku sii adkeeyaan ilaa aynu gobonnimadeena gaadhnana waa inaan ka fadhiisanin habeen iyo maalinba dibadda dhaqaalaha saxaafadda iyo waxa ka jira gudaha ogaadeenaya bannaanka loo gudbiyo iyo ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeenaya shacabkiisa isku duuban inay sii wadaan dagaal kaasi wuxuu ahaa hoggaanka gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya naftihuura sheekh deeq maxamed oon kula kulmayso oo jooga jiida hore ee dagaalka aad iyo aad mahadsan adaa mudan aad iyo aad mahadsan Salka
hadho